magaalada Gashamo ee gobolka Jareer waxaa maanta si rasmi ah looga dhagax dhigay hotel cusub oo loogu magac daray Hotel Gashamo oo milkiile ka yahay Mubaarak Axmed Maxamed waxaana si rasmi ah u dhagax dhigay gudoomiyaha degmada Gashamo Sayid Cali Maxamed Salebaan iyo maayarka degmada Gashamo Barkhad Cabdi Maxamed waxaana sidoo kale bogaadiyay milkiilaha hotelka Gashamo oo bilic badan ku soo kordhiyay bulshada degan magaaladaasi waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi hotelkii ugu horeeyay standard degmada Gashamo laga dhiso uu noqdo Mubaarak oo hambalyeynaya run ahaantii wuxuu anaga waqtigeedii waxa weeyaan aan maamulka inuu ku soo beegay arintii ugu muhiimsanayd ee ahayd in la qabto waxaan u soo jeedinayaa muwaadiniinta Mubaarak oo kala ah mulkiilayaasha in sida Mubaarak ay waxa weeyaan waxyaabaha wax ku oolka ah ay kamid yihiin hoteelada ka qayb qaadanaya bilicda degmada inay soo kordhiyaan oo ay ka faa'iideystaan waqtigan isbedelka waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo maal gashanaysa degmada Gashamo hotelkan oo la yiraahdo Gashamo uu leeyahay milkiilaha la yiraahdo Mubaarak Axmed Maxamed runtii waxaan leenahay hambaliyo waxaan kaloon ku bogaadinahay shacweynaha u dhashay ganacsatada ah degmada Gashamo haddii qurba joog yihiin iyo haddii qolqol joog yihiinba in ay ku daydaan oo ay wax kaga daydaan Mubaarak Axmed Maxamed sida uu maanta hantigiisii ugu horay inuu kaga qayb qaato degmada Gashamo horta waxaan u hambalyeynaya Mubaarak oo dhisayo hotelkan oo hotel weyn ah qiimo badanna ku fadhiya bilic iyo waxtar badanna ku soo kordhin doona degmada waxaan leenahay dhalinyarada reer Gashamo ama odayaasha reer Gashamo cid kasta oo Gashamo ka soo jeeda oo degmada ka soo jeeda ama gobolkan Jareerba ka soo jeeda hamaal gashata magaalada way socotay way fidaysaa markii sarfeyga laga saaray magaaladu way fidtay laakiin dhismo noocan oo kala ah oo star kaas ah oo magaalada bilicda ku soo kordhinaya halkan buu ka bilowday isbitaalkaas waa rifalaal degmooyinkan oo dhan buu loo fargaranaya haddii maanta la furo oo sanadkan miisaaniyada waa loo qabanaya la furo dadka imanaya meel ay saxdaan ma haystaan waliba mulkiilaha waxaan leenahay hore u dedejiye ciddii wax dhisaysaa ma aha xawadii ama hawdkii la lahaa Gaashaamadii oo managa ahayd maaha ceelashiba dhan walba ka qodan ha aaminaan dadka u dhashay degmadani inay meeshoodii tahay sida inankaa yara dhalinyarada ah shalay ka tagay magaalada ee u soo shaqaysanayay ugu soo shaqaystay ee ugu fakarayay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hotelkan Mubaarak Axmed Maxamed waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan halkan ka dhex dhigaynaa hotel cusub oo magaciisa la yiraahdo Gashamo Hotel hotelku wuxuu ka koobnaan doonaa qayb chief ah oo ka kooban 32 qol hoolkii shirarka iyo xafladaha qayb cafeteria iyo baarkino waaweyn runtii waxaan isku leenahay hotelkani waxa uu magaalada ku soo kordhin doonaa bilic iyo muuq wanaagsan waxaan rajayn doonaa inuu noqdo furihii horumarka degmada Gashamo waxa uu ganacsade Mubaarak Maxamed Axmed uu dhagax dhigay madrasad quraankii uu ka soo aflaxay oo muddo gaaraysa 12 sano ka hor xidhantay waxaana madrasadaasi si wada jir ah u dhagax dhigay gudoomiyaha degmada maayarka degmada Gashamo macallinkii wax u dhigi jiray ganacsade Mubaarak iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo dhamaantood bogaadiyay ganacsadahan ku dhiiradeen inuu maalgeliyo degmadiisa isla markaana uu dib u soo eego goobtii uu ka aflaxay runtii iyadoo aan iskuul ka jirin oo aan waxbarasho ka jirin ayaa malcamada halka laga aasaasay dhammaanba dadka reer Gashamoodka intooda madaxda ganacsatada iyo dhammaanba dadka bulshada ugu badan waa meeshii ay wax ka baratay ee ka aflaxday anigu waa malcaamadii ugu horeysay ee alif laga bilaabay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa igu guuleysiyay fikirka ay soo dhaxmariyay ah in meeshii dib u dhisno oo malcaamadii ay dib u shaqeyso oo ay noqoto maxad maanta malcaamado badan baa magaalada ka jira runtii inay noqoto maxad diinta lagu barto quraanka iyo axaadiistaba oo bulshada in badan anfici doonto insha Allah ta'ala ummadda waa la tartamayaa waxa loo tartamayaa degmooyin baa loo tartamayaa gobolada loo tartamayaa kiilada loo tartamayaa marka waxaanu ku boorinayaa in ay dawladdu way dadaalaysaa inteeda way qabanaysaa laakiin baahida meesha taala way ka badan tahay baahi ay dawlad kaliya dabooli karto waa ducaysan waa nin ducaysan ninka xasuustay malcaamadii aad ka soo baxday oo baabaaday wax geliyo ku celi waa ducaysan aakhire iyo adduun bana waa u shaqeeyay aanu sunnimi Mubaarak oo bartan doonaya inuu dhiso in meelo ka waaweyn la saas dhigo waan isla soo hadal qaadnay laakiin se iyadoo tani sidaa tahay
inaan meel kale u jeesano haddana arrinkaasi waa nala noqon waayey wixii ka dambeeya waynu kusii kororsanaynaa laakiinse halkii asalkay hooyoo kale ka dhigantay tusaale aad u fiican oo ku dayasho mudan oo aad kaga dheeraysay saaxiibadaadii kaa horreeyey ee qurba joog ahaa ee dalka in badan ka baqnay dalku tibayay iyo degmada iyo dadku ay tabayeen ase ahaatee aan fili doono inay hormuud u noqon doonto oo ay maanta cid badani dareenkeeda ay wax ka bedeli doonto ilaahay waxaan kaaga baryayaa adigana inaad halkaa hore uga sii socoto waxaanu nahay degmooyinka deegaanka ugu qurba joogga faraha badan haddana waxaad mooddaa inaan xaggaa agoon ka nahay oo weli lama arag qurba joog degmadan u dhashay ama ka soo degaya ama investment gashanaya oo maalgashi ku samaynaya lama arag maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga ee badda cas magaalada gaashaamo ee gobolka jarar mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka